ولا مدح الصوماليا ودبيريال وي dadka reer Soomaaliya dambi bay ka galeen dambiga ka galeen waxa weeye ummad maxalliga tashatay oo go'aan qaadatay ayay warqad been la hortaageen maalba ay leeyeen caalamka anagana la qorsin wuxuu yiri midnimo ku soo shirin faqay been buu sheegay beenta in la isku maawiliyo ma muxudiin Soomaaliya kama mid nihin wixii aan ku heshiinay hawada kamid ah way wada qaateen hawadii maanta waxa ka taagan ognahay Soomaaliland baa al-shabaab kaga daran lambar 1 ah oo ay doonayaan inay burburiyaan oo dagaal kula jiraan oo waa kii warqadii ay soo saareen cabinet minister-koodu wuxuu ahaa Soomaaliland baa tareedka koobaad Soomaaliya ku ah Soomaaliland ma maamulo kaatumana waa maamulo kaatum wax ka tirsan Soomaaliland waa xuduud lamana bedeli karo kaatumana ma bedeli karto xashiga ma bedeli karo kuna wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada BBC waxa soo gabagaboobay shir aan muddo dheer ba socon oo Turkiga uga socday dawladaha Soomaaliya iyo Itoobiya halka oo ay ku kulmeen wasiirada arrimaha halka oo ay wada joogeen wasiirada arrimaha dibadda ee labada dal oo ay u kala dab qaadayeen wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga labada dhinac midkoodna ma wada kulmin kulankina waa uu soo gabagaboobay waxa kaliya ugu weyn ka soo baxayna wuxuu noqday in la ballamay September labadeeda haddaba mid ka mid ah meelaha uu kulanka sida weyn u saameynayay waa Somaliland waxaana hadda ila fadhiya wakiilka Somaliland ee dalka Kenya Dr. Maxamed Barawani ku soo dhawow BBC naasanta Axmedin marka xigtay kulanka ku soo gabagaboobay Turkiga ee Ethiopia Somaliland u socday ee qayb ahaan idin quseeyay maxaad ka leedihiin runtii waxaan u aragnaa in xalka meel ku jirin laga dayayo haddii xalka meel ku jirin laga dayana weligeed guul lagama gaarayo xal lama gaarayo Somaliland iyada Ethiopia heshiis la gashay iyada badda cas iyo golofka iyo rirsiga iyada degan oo maamusha marka inta Soomaaliya Ethiopia la hadlayso waa inay Somaliland la hadashaa way anaga heshiiska galay heshiiska Ethiopia anaga la galay anagana wax bixinay Soomaaliya waxba ma bixin marka qofka haduu waxba bixin oo uu isagu wixii kii wax bixiyay ahayn kii wax la siiyay iyo iyagu ma heshiin karaan anaga cid wax bixinaa oo cid Ethiopia heshiiska la gashay Somaliland marka Soomaaliya meesha ka daysay Ethiopia ay hadii goor ka hadlaysay Ethiopia ay mataqaana hadalkeedu ku badan yahay waxa weeyaan hadii laga cudurka kala fardaha hadii lagu guba dameer dawladda lama gaari karo meel khadabay Soomaaliya wax ka baaraysa marka waxa leenahay war badda cas iyo rirsiga iyo golofka Somaliland baa maamusho oo degan haday Soomaaliya concern ka qabto heshiiska la galay Ethiopia di anaga nala hadlaan Dr. Barawani waa ogtahay sharciyada aad ku maamuleysaan ayaa idinku haystaa oo wadan la aqoonsan yahay oo xurriyad sharciyadeed sida xeerarka caalamiga qabilsan yihiin ama aqbalsan yihiin ma tihidin waa taa marka u imaan doona laakiin waxa tiri Soomaaliya anaga hana la hadasho laakiin way idin la hadasho Soomaaliya Djibouti ku wada kulanteen waxa ku heshiiseen in wada hadal yeelataan oo wada hadaladii dib loo furo waxyaabaha ay isku heyseen ka wada hadashaan waxa kadibna Addis Ababa tagteen heshiis kala gasheen sidee mar kale ay kula hadli karaan horta ta koobaad Somaliland waa dal madax bannaan muxudiino oo shuruucda caalamka oo dhan buuxiyo shuruucda caalamkana uu gaansan wadan inuu difactan noqdana wax adduunka cusub ah Somaliland sharciyada caalamka oo dhan way buuxisay taas waa qodobka labaad kulankii Djibouti ka dhacay ama kulamadii hore Soomaaliya la galay waxba kama soo bixin Soomaaliya iyaga wixii aan lagu heshiiyay muddo 10 sano ku dhow wax kamid ah may fulin marka hadii ayna ummadda dadka hogaaminaya ama madaxda Soomaaliya hadii qiyamkooda iyo awoodooda inay awoodin inay fuliyaan cid heshiis la galaan waxba Soomaaliland mar lagu meedan karo wixii aan ku heshiinay hawada kamid ah way wada qaateen hawadii maanta waxa ka taagan ognahay marka heshiiska anigu aan Ethiopia la galay ee Soomaaliya maalba ka hadlayso heshiiska anaga galay qofka heshiiska galun baa laga hadli karaa weliba badda ama marka laga hadlayo ganacsiga iyo saliga military qodobada laga hadlayo waxa dhulka laga hadlayo dhulkii Somaliland marka Ethiopia Soomaaliya kuma heshiin karaan iyadoo wada hadal aan Somaliland la furin waxa cidii concern ka qabta Somaliland way soo bartay heshiisku wuxuu yahay Ethiopia la galay wax qarsoon mu ahayn marka Soomaaliya runtii wada khaldan bay haysaa waxaana wadada khaldan inay ka baydho ayaa muhiim ah Somaliland iyo Soomaaliya waxa laba dal oo isku biiray beenta in la isku maawiliyo ma muxudiino Soomaaliya kama mid nihin marka hadii madaxda Soomaaliya ay maalin walba 30 sano been isku maawilinayaan taas meel ma gaarayso colaad iyo cunfi cusubna way dhalisay arintan imka Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya oo maalin walba ka hadlayo dadka reer Soomaaliland cunfi iyo colaad cusub bay dhalisay waana eegi doona waxay ka helaan marka Dr. Barawani markii ugu dambeysay oo Djibouti lagu kulmay isfahamkii la gaaray adinka buriyay oo wax yar kadib Addis Ababa aaday soo saasmaha waxba ma burin wax 10 sano ka hor wixii la isku heshiiyay wax kamid ah ma socodsiin maalintii koobaad intaan heshiiska dhicin markay ka soo degeen xamar waftiga Djibouti ka timi wuxuu midnimo ku soo shiinay faqay been buu sheegay
marka maalin walbana marka meel ugu kulmo waxay dhahan midnimo laga wada wax midnimo laga wada ma jiro Soomaaliland Soomaaliya dib way ogeynaa la isugu soo noqonayn annagu maanta Julaygan loo dabaaldegayo waan ku khasaaray anagu taariikhda dadka reer Soomaaliland waxaan ka kasbanay xasuuq iyo burbur iyo dhibaato madaxda Soomaaliya maanta joogta way ogyihiin kuwa horena way ogyihiin marka in maanta la isku maaweeliyo anagu heshiiskaanu galnay maxaa la yiraahdaa Ethiopia heshiiska Soomaaliland lama geli kartaan annaga nala gala taas wax shaqeynaysa ma annaga dhulka ka talina annaga maamula badana annaga maamula dhulkan annaga maamula marka cidda badda dhulka maamusha ayuun baa lagala hadli karaa laakiin qof jooga meel kale waxba go'aan kama gaari karo waxna kama tari karo marka anagu waxaan leenahay heshiiska annaga Ethiopia la galay heshiise kalena waan gelinaa qaar horena waan galay marka madaxda Soomaaliya waxay u baahan yihiin inay ku soo noqdaan xaqiiqada oo xaqiiqada laga wada hadlo oo Soomaaliland iyo Soomaaliya beenta xasan sheekh xalay ka sheegayay $2 isku biiray wuxuu dhahay gobolada waqooyi anaga gobolada waqooyi ma nihin Soomaaliland waxay 70 sano maxkamad Ingiriiska Talyaanigu wuxuu Soomaaliya maamulayay Afrikana saas loo maamulayay halkeebaan gobol ku noqonay anagu waa taariikh lagu muransan yahay lagu muransana muxiido lagu muransana taariikhda Afrika taariikhda Afrika gumaysi baa sameeyay wadan ka sicid baa gumaysatay saas uu dalku noqday taariikhdaas bari Soomaaliya kamid tahay marka wax weyn madaxda Soomaaliya waa inay taariikhdan wax ka bartaan runna sheegaan oo beenta umada laga daayo waaye marka madaxweynaha Soomaaliya fiqi midna lama joogo soo eedeyntaada uga falceliyo laakiin inta de wuxuu xalay ka hadlayay anu waxaan hadlayay tuu xalay ka hadlayay mikrofoonka uu la taagnaa uu laha gobolada waqooyi ku sheegayay anaga gobolada waqooyina lama yiraahdo Soomaaliland iyadoo republic oo dala oo xorriyad qaadatay baanu koodii July nimi anagoo isla Soomaali isu keena oo Soomaali isu timaado taan waa lagu daraysay mar taariikhda kamida marnaba gobolada waqooyi leedan ma oran jirin nalama oran anaga marnaba anagu Soomaaliland taariikh bay lahayd waxa weyn waa wax laga sameeyay xamar laga sameeyay waxay ahaayeen gobolada koonfurta iyo waqooyiga ee Israa'iil waa hadalan taariikh ku bees karaysan maxaa hadda uga doodaysan maxaa marka looga doodi waa hadalan taariikh ku bees karaysan laakiin madaxdiinu iyo dadkiinu iyo bulshadiinu iyo dhergadkiinu waa joogeen doonta bariga ma jirin maxay anigu xilliga ma jirin ma garanay xilliga laakiin waxaan ku sheegayaa waa hadalan taariikh ku salaysnayn waxa weyn Soomaaliland British Protectorate iyo Italian Soomaaliya ayaa koodii July isu yimi say Soomaali aan isugu keenay waliba anaga dareenka lahayn oo dadka reer Soomaaliland markii baarlamaanku shiriyeen 60kii waxay loo hortaagneen midnimo ku dhawaaqaan marka waxaad ambition ama aragti dadka reer Soomaaliland iyo halgan ay qabeen in Soomaaliya la wada mideeyo taana lagu guuleysan NFD way baxday Jigjiga waa baxday Djibouti waa baxday maxaa Soomaaliland u gaara ee lagu dhigan yahay u soo noqon Turkiga iyo wada hadallada soo gabagaboobay wixii saacadihii madaxda loo kala dab qaadayay iyo warsaxafadeedkii ka soo baxay iyo wararkii kala duwanaa Soomaaliya iyo Ethiopia ay ka soo wada saareen intaba dabcan waad aragtina waa ka haysataan maxaa idinkaga baxay maxaad u aragtaan anigu runtii waxaan oranaa inaan heshiiska anigu Ethiopia la galay ee Soomaaliland la gashay Soomaaliya xukun bedel karto cid kale xukun bedel karayso waxa weeyaan xaqiiqada waxa weeyaan Soomaaliland dhulkan iyada maamusha cidda heshiiska shana waa Soomaaliland marka haddii Soomaaliya ka qabto consign oo meelaha hadalkooda ka maqallo de hay yiraahdaan anaga hay yiraahdaan aan wada hadalno because anaga wax naga go'an xamar waxba kama go'an ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya xalay markuu hadlayay arrimaha Soomaalida dhexdeeda ah oo uu idinka la jeeday in wada hadal lagu xaliyo laakiin weydiintu waxay tahay dabcan Soomaaliya iyo kulamada wada hadallada muddo dheer bay soo socdeen wax badan kama soo bixin cid walba markeeda eedeedo hal lahaato ama hala kala badsado eeda kii ugu dambeeyayse iyadoo yidadiilo la muujinayo ayaa wax walba wixii bedelay wixii Soomaaliya ku doodaysaa wax walba lagu heshiiyay ama rajaaho ama isfaham ay soo dhawaashahu jiray waxa bedelay heshiiska aad Addis la gasheen iyo Ethiopia marka midka dib uga noqonaysaan si wada hadallada dib loogu soo noqdo walaal madaxda Soomaaliya waa dambiilayaal weey dadka reer Soomaaliya dambi bay ka galeen kuwii hore meesha ka baxeen dambi bay ka galeen maanta xasan sheekh joogay kuwii dhawaan yimina dambi bay ka galeen dambiga ka galeen waxa weeyaan ummad maxaa la tashatay oo go'aan qaadatay oo waxa weeyaan la ogayay 30 sano dawladnimada ay sameeyeen ayay warqad beena la hortaageen maalba ay leen caalamka anagana la qoonsiyay waxa weeyaan wax ka soconaya ma jiraan waa dambiilayaal weey hadii aan maxkamadda heeg taagno waan ku helaynaa in 7 milyan qof reer Soomaaliland ay warqad beena lagu hortaagan yahay oo maalin walba leey anaga idmatala waxba kama soconaya waa dambiilayaal caalamka maruma dambiga cadaalad la heli doona dadka reer Soomaaliland 30 sano halkaasi maxaa la hortaagan yahay waxa la hortaagayna wax jira ma aha dadka reer Soomaaliya xaq bay leeyihiin iyaga marka hore midnimada doonay iyaga diiday ma qasbi kartid dadkii shalay maxaa la yiraahdaa heesi ee suugaanta tirinayay ee kana sib kana saar lahaayee koodi July yimi de 34 sano ka bacdi haday wixii diideen oo ay ka noqdeen maxay u daba socdaan walaaltina kama muuqato dawladnimo kama muuqato anagu baan idhaahna walaalaanahay laakiin waxay taa walaaltina iyagu muujiyaan xasan sheekh iyo kuwii hore waxay doonayeen inay Soomaaliland burburiyaan oo dagaal bay kula jiraan oo waa kii warqadii ay soo saareen cabinet ministerkoodu wuxuu ahaa Soomaaliland baa tareedka koobaad Soomaaliya ku ah argixisada anaga ka horeyna ma halka dadka kala maraya maxay ka wada hadli karaan siday hormariyeen waxba kama jiraan Soomaaliland baa anigu waan ognahay Soomaaliland baa al-shabaab kaga daran lambar 1 oo ay doonayaan inay burburiyaan oo dagaal kula jiraan
horena ugula jiraan imikana kula jiraan marka waxa weeyaan Somaliland madaxda Soomaaliya dambi horena way ka gashay oo xasuuq baa loo geystay intii ka dambeysana xasuuq wax xun baa loo geystay oo dadka waxay cunaqabateen baa la saaray meel walba warqad baa laga qoray meel walba way taagan waxay leeyihiin waxay la taagan anaga matalan lama matalan dii ما سومالان بكتلين سوماليا كما تليان حسن الشيخ يفقي iyo ra'iisul wasaaradu waxay maalmo ka hadlayaan waa taariikh beenaway beenta dadka lagu maawilin axmed xudiin ma dadka reer Somaliland waxa weeyaan sharaf bay sameeyeen dawladnimo ay sameeyeen nabad bay sameeyeen dadka kale Soomaaliyeed oo soo dhaweynay maxaa cadaabada loogu shidaya waaya doctor Barawani arinka soo hadal qaaday waxyaabihii Somaliland dambiyadii dhacay iyo dilalkii dhacay iyo duqaymihii dhacay dabcan waa xaqiiq qoran oo cidna aysan dafiri kareynin waxaana geysatay dawlad dad reer Somaliland ay qayb ka ahaayeen ciidankeedu ku jireen madaxdeedu ku jireen wasiiradeedu ku jireen baarlamaankeedu ku jireen ma ahan wax cid gaar ah ku koobneed marka dawladdaas qaybta ka eedeen dambigeedii ma qayb gaar ah oo Soomaaliya kamid ah ku riixaysan marka dawladdaas wixii ka dhacay way ognay taas dadka reer Somaliland dhibaatada ku dhacday intii ka dambeysay imika 4 sano oo Xasan Sheikh kamid yahay inta dadka reer Somaliland ay u geysteen ba ka badan ma aha in dadka physical loo dilo in guri la burburiyana ma laakiin waxa inta wax xun bay wadaan ka darantaa oo geysteen de waxa ka daran oo reer imaam matala Xasan Sheikh aniga maal buu xilay aniga matala maal buu qad qoriya ganacsiga bal cunqabatay waxbarashada bal cunqabatay caafimaadka bal cunqabatay wax kasta aan qabtay bay saareen marka waxa weyn dad dhan oo ummadan oo meel ku dhaqan inaad maxaa la yiraahdaa lala galo dagaal caynkaas waxa weyn waa dambiilayaal weey waxa weyn aniga Xasan Sheikh iyo dawladda Soomaaliya lama matalaan dadka reer Somaliland waxay rahan waan isku nimi walaalnimadii iyo waxaan doonay way socon wada waan ka noqonay maxaa marka aad u daba socota Afrika imisa kala noqday muxudiino intaasoo Afrika wadamo isku yima kala noqday dadkoo dhan waa walaalo de raaliga dadka waxa ka go'an waa anaga weey dadka hadii yiraahdaan anigu waan ku yimi walaal waan ka tago weyn heshiin weyni maxaad adiga ii daba socotaa marka laga leeyahay walaaltinimo carabtooda waa walaalo af carabina way ku wada hadlaan waana wadadooda muslima dawladana way kala leeyihiin maxaa marka Soomaaliland ka dhigay in mar walba la yiraahdo Soomaaliland naga mitiin anagu xitaa magaca Soomaaliya waliga kama mid noqon wixii la isugu yimid 60kii Somali Republic buu ahaa wuu burburay iyaguna federaal bay la bixin anaguna Soomaaliland tagan ku noqonay marka waxay taariikhda in been laga sheega maaha madaxda Soomaaliya ilaa Xasan Sheikh oo laba teer soo noqday colaad bay ka shaqeynayaan waxay ka shaqeynayaan dadka Somaliland in maxay yiraahdaa dhibaatadooda iyo xumaantooda ka shaqeynayaan horumar uma ogola dhaqaale uma ogola meel kasta warqad bay qorayaan laakiin anigu waxaan ku sheegayaa xaqiiqada waxa weyn dadka Somaliland dhulkan iyo badan laga hadlay anaga ka talina badda casri Somaliland baale Xasan Sheikhna kama talin karo cid kalena kama talin karto cidaan heshiis la galaana anaga la galay waxna laga bedeli karo waayahay Soomaaliya dawladeeda waxa qayb ka ah dabcan oo xaqiiqo banaan yaala xildhibaano wasiiro taliyaal ciidan iyo madax kala duwan oo qayb ka mid ah deegaanada hadda Somaliland anaga ma matalan kuwaas anaga ma matalan qof xamar ka shaqeeya walaal muxudiin qof xamar ka shaqeeya iyaguna isagoo ku halka jooga qof xamar ka shaqeeyo shaqo tagay Somaliland ma matalo marka waxa weeyaan nin ka shaqeysanaya xamar deesaga u taala dadku meel walba ka shaqeystaan laakiin wax representation oo Somaliland ku leedahay Soomaaliya ma jirto dadka reer Somaliland constitution bay sameeyeen 2000 bay koodii bay codeeyeen 97% ay ku ansixiyeen dawladay doorteen madaxweynayaal bay doorteen waxa loo baahan waxa in la appreciate gareeyo oo dadka aan xumaan iyo dhibaato loo geysan xumaanta xamar ka socotay Xasan Sheikh wado ee maalin walba wado ee kuwii ku horeeyay wadeen ee dadka reer Somaliland lagu caburinayo waxa weeyaan mashquul Soomaali maalmaha kamid ah cadaaladda la tigsan doona waayahay waxa soo hadal qaaday heeg inaad la tageysaan hadda maxay idin hortaagan inaad heeg iyo maxkamadda de waa dambiilayaal qofku haduu ummadan haduu mustaqbalkeeda hortaagan yahay kuma leeyahay kama hadlayna waqti kala bilaabay laakiin waxa ka hadlaynaa inay dambiilayaal kuwii dadka laayay iyo kuwii maanta jooga labadaba dambiilayaal way sababtay dambiilayaal waxa weey kuwii dadka laayay way cadahay oo xasuuqii dhibaatada geysay cadahay ka maanta joogan wuxuu leeyahay ma jirtaan qof nool oo soo jiro looga inuu jiro marka tira ma jirto dambiil tahay ee horumarkii iyo dhaqaalihii iyo waxbarashadii wax walba laga hortaagan yahay warqad lagu xidhay anaga matala lama matalaan anaga Xasan Sheikh Somaliland ma matalo dadka reer Somaliland madaxweyne doorteen dawlad bay leeyihiin madaxweynayaal hore jiray maanta qaar baa jira doorashooyin baa dhacaya constitution baa jira de ma matashide marka waxa weeyaan dadka lama qasbi karo waxa weeyaan Somaliland waxay ahayd dawlad jirtay 70 sano in ka badan oo maxkamiyadii kamid ah gumeysiga Soomaaliland waxay dawlad Talyaani kamid Soomaaliland Ingiriis kamid ah Afrika oo dhan saas ku samaysatay maxaa lagu kala duwan yahay xuduud baan leenahay waxa weeyaan Soomaaliland wax ka soo dawladnimo way dhamaystirtay marka waxa weeyaan hadii la isku yimid de Syria Egypt way isku yimaadeen oo way kala tageen Gambia Senegal way kala tageen marka waxa weeyaan waa kala duwanaayeen maya waxa weeyaan in la qasbo eeg imaka Soomaaliya waxa madaxdooda hadalkoodu waxa weeyaan anaga idin maamulo deena ma maamulaan Xasan Sheikh xalay qodbadu ka jeedinay meesha uu lahaa midnimo ka hadlaya been buu ka sheegay midnimadu ka hadlayay wuxuu beentu sheegay waxa weeyaan wuxuu gobolada waqooyi calan iyo dawlad iyo ra'iisul wasaaraha keenay muu ka waran markii ku dambeeyay calan ka keentay ya calanka shanta bulu calanka shanta xidigood leh
oo ujeedadiisu ahaa shanta Soomaaliyeed soo kala keenay maanta caalamka Soomaaliland ka taga shantii xidigood waa la madoobeeyay maxaa loo madoobeeyay miyaa wali la isweydiiyay xidigta caalamka Soomaaliland ku dhex taallay maanta shanta gees way madowdahay shalan waxay cadaan maxaa u madoobeysay waxa loo madoobeeyay riiska loo madoobeeyay waxa weeyaan wixii la doonayay ahaa shanta Soomaaliyeed la soo keeno waa la waayay maadaama la waayay annagu marka waxa weeyaan riyadaas waxa weeyaan riya ma taqaanaa socon weyday oo halkii aanu rabnay ama Soomaaliland soo keeno way gaari weyday anagu xamar maanu doonayn anagu waxaan doonaynaa NFD inaan keeno jijiga keeno Djibouti keeno gabayada dadka reer Soomaaliland tiriyeen iyo taariikhdooda ku qoran saddexdeena waa la waayay labadii isku yimina heshiisna mayna gelin agriima laguma heshiin siyaasad laguma heshiin dhaqaale laguma heshiin bulsho laguma heshiin waxa weeyaan maalintii 61 inqilaabkii dadka reer Soomaaliland isku dayeen waa kii 1991 soo gabagaboobay soddonkaasna dadka reer Soomaaliland wax kastoo meesha ka jiray habi kuma yahay way Dr. Barawani dabcan waxaa jira dood kale oo sharciyadeed oo dhehaysa in heshiis midnimo oo labada deegaan ay kala wada saxideen uu ansixiyay baarlamaankii 60kii oo ay labada dhinacba ay ku wada jireen laakiin dooda mid aan anaga hadda halka ka dhameeyay ana taa ku saxay waxba kama jiraan wala act of union anaga hargeysa baarlamaanka Soomaaliland baa baaskareeyay baarlamaanka Soomaaliland act of union ku baaskareeyay la yimi xamar waxba kama socon wax act of union la labadii qaabad intay ka wada hadleen saxeexeen oo maanta Xasan Sheekh istuu leeyahay heshiiskaas Soomaaliland la galay ma jirto marka cid Soomaaliland legally iyo siyaasiyiin midna waxba lagu heshiin way doodaada si fiican loo maqlay dabcan dawladda dooda Soomaaliland muddo badan ba la maqlayay laakiin sidaa tiri xamar warqad bay idinku hortaagan tahay oo adeegyada faraha badan oo waxbarashadii horumarkii dhaqaalihii waxaas oo dhan warqad xamar taale ama xamar laga qoray idinkaga xiran hadaba saa ogtihiin xamar warqadda taalaahina idinkaga xiran tahay ma xamar la macaamishaan oo xamar marka waxa idinka dhaxeeya ayaga kala macaamishaan bedelkan meel kala aadi laba macaamilano annagu waxba dadka reer Soomaaliland si kastoo loo cuno qabatay way jirayaan wayna jiri doonaan waxa weeye qofka doonaya inuu warqad beena ku hadigo waxba ma ku yeelayo 34 sano Soomaaliland jirta maanta 40 jaamacadood bay leedahay intaasoo kuno isku dugsare leedahay intaasoo kuno hoose leedahay dhaqaalay samaysay horumar bay samaysay ilbaxnimay samaysay magaalooyin bay samaysay maanta 30kii saneen xamar joognay aan Soomaaliya kamid ahayn iyo 34 sano Soomaaliland madax banaan tahay boqolkiiba 5 bay Soomaaliland horumar samaysay marka waxa inta xitaa ay iyagu sideen ku cadaadiya waxaan uga baahanahay male waxayna yeeli karaan male way aan dib ugu noqono marka wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland wuxuu la kulmay wakiilada Turkiga ee xafiiska Hargeysa ay ku leeyihiin cabasha u gudbiseen iyo walaaca ka muujiseen Turkigu in uu u kala dab qaadayo oo dhexdhexaadinayo labada dhinac Turkiga cabashada u muujinaysaan oo gaarka ah uu sameeyay maxay labada dhinac wada hadlay midna ma hayna sawiir tan waa shaqo caadi ah waxa weeyaan wasaaradda arrimaha dibadda wakiilada wadamada jooga kale way yaadhay waxa weydiiyaan taas ma arrin issue weyn ma waa maalin kasta wax iska dhici kara ama tuguurka aan aqoon ama dawlad kala haado marka taas issue weyn ma waa wax iska dhaqan hadii dawladuna cid ama ay wareyso dhex maro ama ay iswareystaan weeyaan oo kale si lamida sida marka Turkiga aad ula hadasheen Ethiopia oo wada hadalka qayb ka ahayd aan heshiis hore u gaarteen ma la hadasheen taas waxa ku xiran tahay hadda dawladda cidda wasiirka arrimaha dibadda cid uu yeero maaha wax hadii goor qof kasta marka in loo yeero maaha laakiin waxa dhaqan hadii goor wasaaradda arrimaha dibadda in hadba kiilka loo baahdo loo yeero laakiin waxaan ku sheegayaa ama aan runtii ka hadlaynaa waxa weeyaan hadii aan run laga wada hadal weligeed waxba xal ma imanayo Soomaaliland Soomaaliya kamidna Xasan Sheekh waa inuu taa aqoonsadaa hadduu taa aqoonsan waayo waxa weeyaan maanta colaadda cusub ee Xasan Sheekh dhaliyay ee hadda uu bilaabay 6 bilood ma ka shaqeynayay horena uga shaqeynay anigu aan ogeynay oo horena uga shaqeynayay waxa weeyaan Soomaali inay si kala fogaato ma wax la soo dhaweyn ma jiro dadka reer Soomaaliland nabad bay abuureen dawladnimo ay abuureen maxaa loogu soo duulayaa waxa weeyaan muxuu Xasan Sheekh beenta u sheegaya anagu madaxweynaha dawladdan leenahay isagu waxa weeyaan wuxuu maamulaa galmudug iyo garowe iyo boosaaso iyo maalwaaye iyo Kismaayo Soomaaliland ma maamulo qaatumana waa maamulaa qaatum ma maamulo qaatum wax ka tirsan Soomaaliland waa xuduud lama bedeli karo qaatumana ma bedeli karto Xasan Sheekh ma bedeli karo way taasna u iimaanayna aan ku weydiinaynaa laakiin heshiiskii aan la gasheen Ethiopia koodii maalintii koowaad ee sanadkan buu ahaa 6 bil iyo dheeraad baa ka soo wareegtay maxuusan hore u dhaqaaqin maxaa hortaagan waxba ma hortaagna waxa weeyaan anagu wax runtii culays soo nasaarin area ma jiro heshiisyo horaan galnay oo DBOL ka mid ahayd muddo la waday waa laga shaqeynayaa waxa weeyaan wax degdeg ah iyo culays soo nasaarin baan jirin marka heshiis fiican oo laga shaqeeyay oo ummadda kooda dheegsan tahay oo baarlamaanka la geeyay oo cid waliba waqti noqonaya marka waxaan dadajinaya iyo waxaan ka cararayno iyo barashan nasaarin midna ma jiro goormay taa noqonaysaa waa insha Allah dhawaan bil kadib maalinta ma oran karo laakiin dhawaan already waa heshiiskaas waa dhan yahay waa dhawaan weyn insha Allah dabcan Soomaaliland doorasho ku soo socota oo November dhacaysa ma doorashada ka hor ma oran karo doorashada ka hor doorashada ka bacdi laakiin aan wax ku ogahay heshiiskaas inuu socdo oo already maxaa la yahay qorshe loogu talgalay uu ku socdo qorshahaasuna maalinta soo gabagabo maalinta inta noqotay wuu fulaya waayahay Ethiopia iyo Soomaaliya hadda waxay bilansan yihiin 2 bisha September
ma xilliga kulanka ballanka ay leeyihiin ka hor ayaad filaysaan inaad soo wax ka soo wax ku xidhan maaha annaga taasna ma khusayso waxay Soomaaliya ka wada hadleen iyo Ethiopia dabcan heshiiska aad gasheen ka wada hadlayeen dee annaga miyaa nala soo infeed gareeyay waxay haddii laga wada hadlay heshiiskan galay tukurga annagana hanoo yar heshiis saddex goosada wixii saddexda miis soo fariisano annaga marka haddaan miiska fadhiino annaga dal oo la aqoonsan yahay iyo adinkoo la idin aqoonsanayn wax weyn aqoonsiga lafta sharaxaad u baahan Soomaaliland wax weyn waa dal jira oo cid walba og tahay horena u jiray weligeena jiray marka wax weyn waa ka heshiiska gelaya haddii Soomaaliya ay Soomaaliland maamusho miyay baryootami lahayd maanta haddayna maamulaan ama dalka aan joogno ka taliyaan miyay baryootami lahayd fagaara ka saxashiisa ku baryootamaya muxuu baryootamaya muxuu beenta u sheegaya annaga hadduu Soomaaliland ka taliyo muxuu la baryootamaya fagaara kastay tagaan way ka hadlayaan ma yimaadaan oo ay yiraahdaan annaga ka talina oo xuduudkan ay sheegaan soo xidhaan kama taliyaan marka wax weyn marba in fagaara laga baryootama waxba ma tarayso Soomaaliland annaga ka talina dhulka dalkan annaga ka talina xuduudna dhulkaygu uu leeyahay cid bedeli kartaa ma jirto cid heshiis meel gashuun baan iman kartaa way macnaha baryootanka waxa laga yaabaa siyaabo kala duwan in loo arko ama loo fahmo laakiin taa ma hadda muhiimadda Dr. Barawane doorasho soo socota waxaana la tuhmayaa mid kamid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee ololaha doorashada lagu gali doono inuu yahay safarka aad Ethiopia la gaarteen xogtiisa iyo dhaqangalkiisa ama inay wax cusub ka soo kordhaan oo wax horumar uu sameeyo oo meeshii la saxiixay meel ka duwan uu soo gaaro doorashada ka hor miyay dadku filan karaan mise kadib nidaamka Soomaaliland qaatay dimuqraasigu waa nidaam tartan ah marka wax weyn kuma xidhna heshiiskana kuma xidhna wala tartamaya horena waa loo tartamay doorashooyin baan galnay asxaab baan leenahay marka runtii kuma xidhna heshiis ama doorashada ka hor noqdo ama kadib ha noqdo wax heshiis ku xidhan maaha doorashadu way dhacaysaa waana la tartamaya horena waa loo tartamay marka wax cusub ma taas marka Soomaaliland ma ogo xilliga uu qaadan karayo inuu soo gabagaboobo ama ay heshiiska la saxiixo ama la dhaqan geliyo runtii ma oran karna maalintaas iyo bisha laakiin waxaan ku sheegayaa in heshiiskaas qorshe loogu talagalay iyo road map ku socdo road mapkuna xilliga loogu talagalay uu soo gabagaboobi doonaa jadwalka ama road mapka idin degsan goorma ku egyahay ma oran kara bishaas ku egyahay laakiin waxaan ku sheegayaa in road mapkaas jiro xilligii loogu talagalay uu soo gabagaboobi waaya waxa soo hadal qaaday arinka qaatumo iyo dawladda federaalka inaysan ka talin laakiin intixaamaadkii dugsiyada sare ee Soomaaliya ayaa laascanood lagu galay meelo kale oo kamid ah meelaha qaatumo SSC ay sheeganayso inay ayadu maamusho marka taa warkaaga Soomaaliya burinayo Soomaaliya halka ma maamusho wala gaf weeyaan wax weyn laascanood waa degmo Soomaaliland ka tirsan degmada laascanood Soomaaliland ma ka tirsan gobolka Sool laakiin cid kale ka talisa hadda waan aqoonsanayn Soomaaliland wax weeyaan taas wax ka soconaya ma jiraan wax weyn imtixaan la geeyo anigu dadka waan dhowrana wadadan walaalnahay wadadan ehlahay markaas Soomaaliya duulaankii ku soo qaadaysay ay intervention ku sameynayso waa waxyaabaha murginaya shaqo kasto iyo xiriir kasta iyo hawl kasto la qaban lahaa waxa weyn Soomaaliland waa dhul iyo maam iyo xuduud ay leedahay Xasan Sheekh ma bedeli karo qof kalena ma bedeli karo marka waxaan ku sheegayaa inuu maanta ku fahmay 34 sano ka hor baan maanta geynay maxay u geynayaan waxa weyn Soomaaliland 34 sano way maamulaysaa laascanood wayna maamuli doontaa waxna kama soconayaan interventionka Xasan Sheekh iyo imtixaanku geeyay waxba kama soconayaan dhulka Soomaaliland baale maamka Soomaaliland ka tirsan degmada laascanood waa dhul Soomaaliland ka tirsan wayna ahaan doontaa way mudane Dr. Barawane ugu dambeyn waxa isqabadsiisaa dooda ah Soomaaliland qayb kama ahan oo waan ka baxnay oo annaka xuduudaheennii maamulna tacadiyadii leenoo geystay ayaan uga baxnay iyo dooda qaatuma oo aad leedahay nagama bixi karaan labada mid ee gar ah labadooda isku mid maaha dooda Soomaaliland wax weeyaan dowladda Soomaaliya waxay ma aha tacadi iyo xuquuq lagama hadlayo dowladda Soomaaliland iyo Soomaaliya waxay burburtay July markii la isku yimid maalmo ka bacdi completely ma aha dagaalkii dadka lagu leeyahay ma waxweyn 60kiiba dood August July baa la isku August way burburtay waayo waxay u burburtay wax lagu heshiiyay iyo wax ma taqaana meesha ka dhacay midna ma jiro wixii ka dambeeyay dhibaato ma sii socotay hada faantay marka ma u ogoshahay reer laascaanood inay go'aankooda xor u yihiin sida aad doonaysaan Hargeysa iyo qaybaha waa kees ka duwan walaalwey keeska laascaanood kees ka duwan labada kees oo kala duwan weeyaan keeska Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa weey iyo keeska laascaanood kees kala duwan waxa weey Soomaaliland waxay dal madax banaan oo Soomaali iyo midnimo doonay tiin heshiis uu ka dhicay aad